وحكاك إن واحد هاي تذكر ديجان كان لتشارك أقل كم دحين كونك إن واحد كعبنا مثلا إن وحكا دبعتواش إيش شكت إن أظن عاوز تحكم بلعبية بل السيا وحيدين كل عين عبشرات محيط حاول والله دحين كحين كمر طور تشار بان هاي تشار ما هنا قول جمل كل سنة لا بلوجيسي أقل كلا ما أنتوا السنة توده سنة ويوري قاعدتوا نمرني إنه وحمسدي أهانو مركي طنبه سووا معنا ku daaradiisa soo galo ciidanka la socda ayaan ku galay su'aal baan weydiiyay waxaan ku yiri madaxweyne ku xigeen dajaarkaagi baan nahay maxaad u baahan tahay in kugu sameeyay noo sheegan dadka maadsida baan nahay dad wuxuu dhisi lahay id gacan qaban lahay inaan dhibaataysan maayo waxaan doonayaa deelka in la ii toosiyo deelka guriga in la ii toosiyo dadna waxaan idhaa halka doonaysa taabo wuxuu taaftay gidaarkii qallooci baan uga biinay dadna sidii waxay sheekadu waatay markii dambana wuxuu sameeyay deelkii baa u socda oo dhismay ciidan baa noo yimid ciidankii markay noo yimaadeen waxay yiraahdeen madaxweyne ku xigeenka dhagax uu ku tiirsanay ma diidanta haayo waan diidanahay aanu jagaan deganahay taa u iibsaday anigu sumid baan nahay inaan uga soo reeyay ka iibsaday meesha haduu doonaya dhagaxin uu geli wajahad ka dhigo hayga iibsadeen dadna way ugu diideen waxay yiraahdeen mii dhagaxan wuxuu ku yeelayaa ma jirto xidhibi ku geysanayaa ma jirto waan ka diiday habeennimadii salaadii markaas wax saa looga baxay ciidan uu soo dalbaday ciidankii baa guriga igu soo daatay anigoo qalan waliba xanuunsanayo jiifa ciidan igu soo galay meesha ciidan markuu igu soo galay ayay ciidankii xidhay waxay ugu xidheen halkan koodbuur cidina maktabada imeegeen cidina waxbay may oran waxbayga may qorin waa la igu daboolay gacan baa la ii geystay waa la idilay markuu aqalkii dhagaxii digdaarkii dhamaadayna waa la ii soo daayay markaan maxaa dii gabadha maktabadana yaa ku xidhay madaxweynaha ku xidhay madaxweyne ku xigeenka ku xidhay ee isaga oo u tago weydiisaga wax isaga caruurtoodii haysaay waxaan ku haystaa meel caruurta yar oo aan bood kala tagnay oo anigu shaaha yar iyo aanu kariyo jaadka yar meesha ugu iibiyo wax kalena aan u hayn soo garanays imika markii dambana imikana markii dambeysay ku sameeyay imika aniga oo intaan jaajuur yar iyo jaajuura oo meesha igu dhisnayd oo maqsinahayd aan dhistay ayaabuu maxay ahaydeen darawalkiisu intuu tagay ku yiri gabadhii meeshii bay dhisatay wuxuu yiri ordo maxay ahaydeen waxa ku jira meesha dumi kiiba yimid wuxuu guri madaxweyne ku meesha dumi ku miyuulay meesha ku reerka uu ka iibsaday anigu isku mid bana meel dan guuday maatada ay baan ku haystaa gidaarka yar waxaan dhistay ee dadku fariisanayaan tameyntu ii dhisi lahaa anagoo jaar ah ayuu haddana xumaynaya kiiba iga tagay odagii buu tagay odagii wuxuu yiri maxay ahaydeen wuxuu la hadlay channelkii bilayska madaxdii oo dhan ayuu la hadlay iga qabta naagtan iga xidha waa la xidhay waa la daboolay gidaarkii waa la iga dumiyay gacanta la imariyay waxaan xidhnaa 17 cisho ayaan xidhnaa 17 ka cishan xidhnaa maatadaydii ilaa ku baqtiyeen gurigeygii gacanta la mariyay waxa hoona layma oran aabahay waa nin gaashaala sare ah juuq iyo jaaq midna looma lama tixgelin dawladda waxaan ku codsanaynaa inay حقي أباهاي كل هذا دولة ولا السيا أباهاي كان مو بوي ما نقصف كدقين إن ده هاس نلاقيه ونين كاسي أنا قبضت دولة إن هاس نلاقيه تيجي واجه واحد شكله إن يقولوا لي كتبي إن لو حري إن محفر هذا إلا حتى أنا أرد الربع محفر هاي محاقة صار سوق على مكاسو صاروا حيسوق عليه كل جدة أرتع فلا يقدميه aniga waa la xiray caruurta way ga balan bashay guriga waa diga arkayso isku dhexdaadsan yahay layma oran 100 shilin hooyo dhibaatadii ku gaadhay waxa siiso wana jaarkaygii waliba waa la hanjibay been abuur baa la iga sameeyay oo la waxay doonaysaa madaxweyne ku xigeenka inay qarxisaynta gurigiisa dhex tagtay marka taliya qaybta markuu soo deynayay su'aashii uu weydiiyay waxay ahayd ugu horeysay maxaad qaraxa ku keentay waxaan qarax wala iguma soo xirin guriga aan dhisanayay baa la igu soo xiray soo maad garan deedna maktabada la iga sii daayay maanta ugu horeysay ee la geeyay maktabada markii la iga sii daayay saldhiga maxamed casi ayaa igu dhigay oo ma sii deeyno anigu amariga sareeya waxa haysta madaxda haysata madaxdiina waxay ku dambeysay taliya qaybtuna wuxuu igu jawaabay igu qarax baa la igu qarax bay qarxinays anu waxna ma qarxin karo miskiin baana muwaadil baana dalkaygana qarxiyaan dhibaatay midna ma jecel sabab garan isaga madaxweynahayga madaxweyne ku xigeenkii madaxweynaha midna inaan caayay ma jecel laakiin isagu inuu ilaaliyo oo dadka inuu maqlo maaha inuu hoos eego inuu dicismadeeda uu arkay igu joogsado midna maaha adaalimka daaqada sameysay islaada waxa la igu leeyahay madaxweynuhu wuxuu ku yiri yaan ciidan ku soo dirin waxaad garaacaysa nagada habeenka baabkiisa samayso baabku hadii go'o inta ciidan ku yimaadaan madaxweynuhu wuxuu ku yiri ninka darawalka ay musarraaciye la yiraahdo ayaa wuxuu ku madaxweyne ku xigeenku yaana ciidan ku soo diray
wuxuu doonayo inuuna cidna nala soo kaashan hadduu meesha doonayo suu taa u iibsaday inuu nuugu yimaado uu yidhaahdo wixii aad jeceshihiin baan isiinaya wadoo madaxweyne ku-xigeenkeygii anagu ma yasane ila ma yasane inuu yimaado yidhaahdo halkan baan u baahanay ama ciidanka aad u dejisanayo haddii ama dawladdu doonayso maxaas kaa waxaan bixiyey kiisii baan isiinaya laakiin waa dulmiyo uu intuu nima noo soo diray isagoo noo iman waayo nimankuna xidhxidhaan maaha inaan cid noo dhaxaysano ma anagaa jaaro xaq iskule marna idinku maka wada hadashano makala hadlay arrintani adigu se ma u bandhigtay inaad doonayso haddii aanay markaasi meeshii ay ammaankeedii la ilaalinayo gurigu waa guri madaxweyne ku-xigeen saruntii de haddii yidhahdeen ammaankii iyo wixii baanu ilaalinaynaa adigu ma u bandhigto ma tiri aniga de meesha iga raro oo aniga meel kaga dejiyo de iga iibsada dhulkii maya marna ma bandhigin marna ilamu iman ciidankiisa ilaalada dhan halkan ay fadhiistaan waxbay iga iibsadaan halka habeenkii waxay ogyihiin anigu inuu habeenkii qofka halkaa mara anuu aan la socdo oon ogahay oo qofka xilliga dambe soo mara aan la socdo dhib geysanayo soo celiyo anigu oo yidhaahdo xaggeed ku socoto xaggeed ka timid oon anigu xeradaas ay dhideen intaa ku leekaaday oo iyaga xaafadii ka garanayo oo kaan garan waayo intaan ugu yidhaahdo ninkan naga eega yidhaahdo soo maad garan marna ma odhan marna iga iibsa ma odhan labadaa jeere markaa hore xidhay markanba dad unbaa qudaadar u geeyey soo maad garan waxaan jecelahay laakiin madaxweyne ku-xigeenku inuu jaarnimo iyo ubadkoogiyoon hayo ehelnimo igu eego soo garamays uu yidhaahdo maxay haydeenay wixii uu sheeganayo intuu ii soo kaxeey yidhahdo ii geeye waxaan jeclaystay inaan u galo oon gurigiisa galo oon kala hadlo arrintaa oon yidhaahdo ii geeya waxay yidhahdeen una qabsanayaa maba arki karayo darawalkiisa ayaa igu yidhi waya waxaad ka sheekaysay arrin ehelnimada ka sheekaysay maxaa ehelnimada ka dhexaysa ma ehelnimada carruurtan aan dhalay anigu naag waxaan ahay Somaliland dhotay laakiin carruurtan dhalay ehel bay yihiin oo qaraabo yihiin soomaad garan rasuulkiina waa kii sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaraabada ay dadkeena iska xigaan in lagu joogsado ma xadiis dhan baaba ah soo garanaysi way ka xigaan ubadkani daan ubadkan ilaahay dartiisa ku korinaya reerkooga waxba iguma siiyaan aniga haya kii caawin lahaa weeyaan ana ka gudubno ugu dambeyntii waxaan doonayaa ku weydiiyo hadda maxaa ku qorshaysan wadigana waa cabanaysa meeshana meherad ku taalla dhulkan aad sheegaysana de guri madaxweyne ku ka jaarihiin horumar waxaad u sheegteen dee ammaan ahaan ay mar walba lagu cadaalinayo adigu diyaar mootay haddiiba ay iyagu dhinaca madaxweyne ku tanaasuli waayaan oo ay arrintusan kusii noqoto oo culeyskana kusii saarnaadeen meesha isaga gurto anigu waxaan diyaar ugu ahay markuu reerkaa wuxuu ka siistay iga siisto dawladdu ma ogtahay dhulka dawladda waa la degay markii la degay dadkii la degay aniga waa la siyaabahay xaq baana loo siiyey ina maxay haydeen inay dadka uu ka iibsaday iyo anu isku mid baana ku ka iibsaday waliba dal lama siin way qabsadeen soo garanays inuu sidaa iga yeelo meel fiican fariisiyo meeshii laado aan u baahano meeshu waa meel dawladeed waxaan ku dhisayaa aqal inimadiina kale xanuunsanaya maatida iyagana waxaan u dhisayaa aqal waa daarada inta leeg ya oo waji fiican iyo wanaag ku kala tagno ayaan jecelahay dad badan kala jaartiin halkan oo guri kala ka muuqdaan dadkaas ma laga baahan dadkaasi horta anaga reeraha wali culays muu saarin oo muu xirin laakiin anaga daaradeedu waxay ka xiran tahay wadan ma marto gidaar baa xagaasa oo reer baa dhinaca naga maray fooq baa dhinaca naga maray wada jihaadeeduna waa halkan wajahadna waxay ku leedahay guriga imika inuu isciidibsaday xagga dambe reerahaas wax aadimaha iyo wuxuu ku doontaa midna ma jirto waayo lamana hadlo laakiin halkan uu doonayaa bay leedahay madax say ilaalin ciidanka bideysku halkan ayuu doonayaa ciidan dadkiisu ay dadkan uu doonayaa una cadeysan garan waay laakiin waxa uu ka sharaf badan inuu anaga noo yimaado si wanaagsan oo la xaalo waliba aniga meesha degan aniga intuu yimaado walaadayna madax xanuunsanaya iyo adigaba waan ku xaal marinayaa waxa doonaysaa anaa ku siinaya inna sida iyo laakiin inuu duuduubo uu jeel ugu duuduubo markasta uu xiro anigoon xumaan u geysan anigoon caayin inamadiisa xitaa waan saarnay inankiisa kamaal waan soo raacnay waxaan tii guriga ma burburtay marka horena way ga burburtay sandaqada waa laga dumiyay sandaqada maantana tan baa laga dumiyay waan dhimi ka tan baa laga dumiyay qolka aan ku tirsan waa laga dumiyay waa laga baabiyay oo muxuu ahaa qolka jaajuur buu ahaa marsan jaajuur oo leetarkii la shubay marka dhaqaale burburtay ka soo gaadhay wallahi ag badan bay iga soo gaadho deyn la haysto saako dhan waan maqnaayo meelaha san dadka wax haysto u tagtago waa soo waayo wallahi dhaqaale burbur xoog ay iga soo gaadhay anigu waan qalanahay askartu way laageen shalay naagta cad ee hilaal leedahay isbitaalka ayay qashay naag kale cad bay la balantay inay eegto doonaysay meeshan way barartay aad bay maanta weydii dileen askartu aad baad maasan tahay